munaasabada qalinjabinta dufcadii koobaad ee ka qalinjabisa jaamacadda Shifo faraceeda magaalada Burco ayaa maanta ka qabsoontay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ardaydan oo ka kooban 124 arday ayaa dhamaysatay kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Shifa oo kamid ah hormuudka jaamacadaha gobolka Togdheer. Madasha qalinjabinta oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ku suntanayd milge iyo maamuus aad u sareeyay, waxaana kulmisay mas'uuliyiin xilal wasiirka iyo xukuumadda Somaliland, waalidiin, arday, maamulka gobolka Togdheer, ka degmada Burco iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horeyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha jaamacadda Shifa faraceeda magaalada Burco Professor Ismaaciil Maxamuud Caraale, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Shifo faraceeda Burco Dr. Maxamed Cabdi Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadda Shifa Cali Maxamed. waxaanay ku dheeraadeen sooyaalka jaamacadda Shifa iyo horumarka dhanka waxbarasho ee ay ku tallaabsatay tan iyo markii la aasaasay. waxaanay mas'uuliyiintan ay tilmaameen in ardaydan maanta qalin jabisay ay buuxiyeen dhammaanba shuruudihii looga baahnaa ardayga qalin jabinaya. maanta waa maalin taariikhda galaysa, waa maalin suntan jaamacadda Shifa u suntan ardayda qiimaha badan ee muddada dheer safarka ku soo jirtay ee halganka ku soo jirtay u suntan oo maanta taagan darajo ah inay aqoon u leeyihiin oo ay xambaarsan yihiin mihnad ay dadkana wax ugu tari karaan, waalidkood iyo cid kastoo tacab gelisayna ay kaalin ugu buuxin karaan. ardayda idin hor fadhida sidii gudoomiye ku-xigeenku sheegayba marka hore sida ay ku soo galeen si adag bay ahayd ama jaamacadda Shifa ay ku qaadatay, iyagana markhaati ka ah oo halkan fadhiya meelo badanna ka sheegay. waxaanu aad ugu dadaalay in ardayga noo imanaya uu noqdo arday la hubo inuu secondarygii ka soo baxay 12 sano soo dhamaystay, waxbarashadiisuna ay tahay mid saxan. marka laga tago mihnada caafimaadka oo kuleyba qaybaha ay kala yihiin ah, waxaa barbar socday side courses kale oo ay qaadanayeen oo ku saabsan nolosha, oo ku saabsan sida ay mas'uuliyad iyo xil u qaadi karaan. jaamacadda Shifo haddii Hargeysa tahay iyo haddii Burco tahayba waa jaamacaddii ugu horeysay ee bilowda imtixaanada Oscarka ama imtixaanada practicalka ah ee qofka ardayga laga qaaday keligii la weydiiyay loo diro inuu xaliyo oo uu daweeyo ama process mariyo qof buka oo iyagu ay toos u abaaraan. ardayda maanta qalin bedelanaysa waxa weeyaan ku qalabaysan xirfadaha caafimaadka waxay jaamacadda bilaabeen markii ugu horeysay halkan laga furay muddo 2017. ardayda waxa weeyaan waxay ka kala baxeen waa 124 arday oo 70 ka mid ah ay barteen Bachelor Degree of Medical Science, Laboratory Technology, Midwifery iyo Clinical Nursing. 54 ka mid ah ay barteen kulliyadaha diploma oo isugu jira Nursing, Midwifery, English Literature iyo Pharmacy. runtii ardaydaasi waa xirfadlayaal caafimaad ama mihnadayaal caafimaad oo u soo baxay Somaliland oo soo baxay magaalada Burco iyo gobolka Togdheer oo aaminsanahay bukaanka ay qaabilaan inay ka soo baxayaan baahida uu qabo si rasmi ah. waxaanu aasaasnay 99kii oo aanu wasaaradda caafimaadka uga soo qaadnay ruqsadii u horeysay ee ku meel gaarka ahayd, waayo Somaliland kama jirin institution kale ama college caafimaad oo waqtigaa jiray. sidaa awgeed waxaa la yidhi maadaama aanay siyaasad cadi ka oolin ku meel gaar baanu dhisinaynaa. waxa ay soo ahayd Shifa Health College oo dhigaysay culumta caafimaadka noocyadeeda kala duwan. 12 sanadood bay college soo ahayd, college weyn oo Somaliland iyo Soomaaliya dadkiisa ay maanta ka shaqeeyaan. dhanka kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Cawad, agaasima waaxidka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Daljir, gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday
isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashi xubno ku hadlayay afka ardayda jaamacadda Shifa waalidiin iyo mas'uuliyiin kale waxaanay dhammaantoodba hambalyeeyeen ardaydan ka aflaxday kulliyadaha kala duwan ee bixiso jaamacadda Shifa iyagoo ka markhaati kacay tayada waxbarasho ee ay bixiso jaamacadda Shifa faraceeda magaalada Burco. runtii dadaal badan soo galay oo heer waxbarasho oo waqti dheer ka qaatay oo cimrigeennii kala badha ayaa soo wadateen qalinka maantana marxalad baa ku soo xidheen marxalad kale oo sugayaana waa jiraan ardayda iyo waalidiintoodba waan u hambalyeeynaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydi barakeeyo jaamacadda Shifana waxaan leeyahay kaalin muhiim ah baad ugu jirtaan gobolka iyo bulshadaba Allah idinku guuleeyo waxaan kula dardaarmayaa anigu kelmado kooban inaydin aqoonta ka daalin sii wadaan ayaan idinkula dardaarmayaa oo aqoontiina sii wadataan waxaan idinka digayaa inaad ka fogaataan wax kasta oo mustaqbalkiina cad madow ka dhigaya waxa anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada agaasimaha jaamacadaha iyo tacliin iyo macaahidda tacliinta sare aan ahay afkii wasiirka anigoo ku hadlaya magacii wasiirka iyo wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay ardayda qalin jebinaysa hambaliyo 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 intaa kadib waxbarashadu ma dhammaato waxbarashaduna maaha ama marka la yidhahdo education is not the name of any degree or certificate that can be shown to others as a proof. waxaan u hambalyeynaynaa oo u baarigaynaa oo u ducaynaynaa dhallinyarada quruxda baran ee reer Togdheer ee habliya inamaba leh ee maanta aqoonta qeybaheedii kala duwaneed halkan qalinjabintoodii koowaad ku soo bandhigaya waan u baarigaynaa waana u ducaynaynaa waana kelmadda ugu muhiimsan waa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aqoonta iyo cilmiga barateen inuu noqdo cilmi ku anfacdaan dalkiina iyo dadkiina iyo nafihiinaba waxaan hambalyo kala u dirayaa waa jaamacaddii koowaad ee ciidanka qaranka siisay scholarship maanta halkan ayaan midheed ku arkayno saraakiisha iyo kuwa ka hadhayba aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa jaamacadaha kale gobolka ku yaalla inay ku daydaan jaamacadda Shifo ayaa faraya ka codsan maayeen ayaa faraya inay ku daydaan waxay la gudboon inaan u ducooyo u hambalyeeyo dhalinyarta da'da yar leh ee maanta xirfadlayaasha caafimaadka noqday waxaan leeyahay hambaliyo 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 waad ka culays badantihiin risaalad ka culus baad jirtaa dadka kale ama ardayda kale wax kala barta caafimaadka waxaa laydinku aaminayaa qof nool oo ilaahay karaameeyey caafimaadkiisii ayaa laydinku aaminayaa culayska intaa leeg iyo mas-uuliyadda intaa leeg waa inaad dareentaa Shucayb Xasan Dheere Sahan TV